sharaf ayay ii tahay sharaf ayay noo tahay maantay inaan ka soo qayb galno munaasabadan lagu muujinayo xiriirka ka dhaxeeya dowladda Turkiga iyo Soomaaliya xiriirkaas oo sida la sheegay soo bilowday waqti hore balse dib u cusboonaysiintiisu ay ahayd xilli dadka Soomaaliyeed oo si aad iyo aad ah u liitay mudanayaal iyo marwooyin waxaan ka mid ahaa shakhsiyaadka goobjoogga ahaa xilliga uu imaanayay ra'iisul wasaare Erdogan bishii Agoosto 19keedii 2011 runtii waxay ahayd xilli adag oo colaado ba'an ay ka jiraan guud ahaan dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho ayadoo taasi ay jirto ayaa waxaa ugu sii darmay ummadda Soomaaliyeed abaar aan dhihi karo way ku yareed dalka Soomaaliya mid lamida haddii ay soo martay waxay ahayd xilli cid kasta oo na gargaari lahayd ay ku dhiiran weyday inay noo timaado dalka oo aan amni ahayn dartii waxaase cabsidii caalamku qabay meesha ka saaray ra'iisul wasaarihii xilligaas ee Turkiga Rajab Tayyip Erdogan golihiisa wasiirada iyo qoyskiisii oo si aan adduunkuba filayn ka soo degay magaalada caasimadda ee dalka ra'iisul wasaaraha markii uu ka soo degay gegada caalamiga ah ee Aadan Cadde International Airport waxaa halkaas ku soo dhaweeyay madaxweynihii Soomaaliyeed ee xilligaas mudane Shariif Sheekh Axmed laba xero oo sida uu sheegay wasiirka shaqada ee shaqaalaha ku taalay degmooyinka Madiina ee la dhihi jiray Badbaado iyo Rajo ayay si toos ah u aadeen halkaas oo dadka Muqdisho ay la daaladhacayeen inay barakacayaasha dejiyaan una qaaraamaan wixii badbaado nololeed u ah runtii ayagoo liita reer Muqdisho duruuf baan ay hayso ayay haddana u gurmadeen walaalaha soo barakacay oo baahida iyo amni darradu isugu darantay dowladda Turkiga iyo madaxdeedii oo aan waxba la harin marka ay na soo gaareen waxaan dareennay inaan leenahay walaal dhab ah oo muslim ah oo garabkeena istaagay xilli ummadda Soomaaliyeed ay si dhab ah ugu baahnayd garab istaag midaas ayada ah ayaa lama ilaawaan ka dhigtay guud ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo qulubtoodaba fahamsiisayna adduunka intiisa kale in Soomaaliya la gargaari karo la tegi karo lana maal gashan karo ma ahayn dowladda Turkiga inay mucaawino iyo nolol la soo gaartay dadkii abaaruhu saameeyeen ee kaliya waxa kaloo ay qayb ka qaadatay dib u dhiskii caafimaadkii waxbarashadii iyo amnigii iyo dhismaha dhaqaalaha dalka mas'uuliyiin badan ayaa ka dhawaajiyay ma raba inaan ku dheeraado laakiin waxaan dhihi karaa ilaa hadda maynaan helin xilliyo kala duwan duruufo kala duwan oo aan soo marnay mathal la dhinac dhigi karo dowladda Turkiga dowladda Turkiga iyo madaxweynaha Turkiga waa mid qulubta Soomaaliyeed meel gaar ah uga qoran aanna hubo inayan ilaabi doonin taariikhda kuma ekaan intaas cid kasta oo bukaan ah ama ha noqoto bukaan ka soo gaaray dagaaladii iyo rabshadihii
ama ha ahaato bukaan kale waxay ku daaweeyeen dalkooda si free ah ama bilaash ah. sidoo kale ardadii Soomaaliyeed ee aan awoodi karin inay waxbarashada sii wataana waxaa loo qaaday dalka Turkiga oo maantay waxay ku soo noqdeen dalkooda iyagoo dhaqaatiir, injineero iyo bayloodyo ah. walaalayaal, waxay suura gelisay dowladda Turkigu in ay soo noqoto qabtii dowladnimo, Soomaalinimo. waxay isku dayeen dowladda Soomaaliya inay xiriir iyo calaaqaad iyo heshiis ay uga furto Somaliland oo aad ogtihiin inay dadaal dheer ay u gashay. ma koobi karo, halkan kuma soo koobi karo garab istaagga muuqda ee aan mid la barbar dhigo lahayn ee dowladda Turkiga ay u gashay Soomaaliya, balse waxaan doonayaa gabagabada inaan uga haro mas'uuliyiinta iga dambeeyay